السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha soo dhawaada dhammaantiin saad u dhantiin. haddii aad doonaysid inaad ogaatid sidaan u sameeyey suunyahan, fadlan daawo ilaa videoga dhammaadkiisa. commentina dhaafa. wixii su'aalaad qabtaan isoo weydiiya haddii ilaahayno. aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa daawashada aad daawanaysaan insha allahu tacaala. fadlan la sheer garay asxaabtaada iyo familigaaga si dhammaantood kulligood ay uga wada faa'iidaan. hana igala baqaylinayaa inaad ii subscribe garaysaan si aad ula socotaan fiidiyoyadeeda xiisaha badan ee hawada kusoo jira. daawasho wacan walaalaha, soo dhawaada walaalaha. waxaa la yidhaha hadal yar iyo hawl badan. hadal badan ahaan ma buuxsho, laakiin wixii muhiim waan ka hadlayaa. waxaan ku bilaabayaa translucent powderkan by Laura Mercier. brushkaas aanu isticmaali doono powderkaas Anastasia pomade midabka medium brownka. waad ujeedaan brushkaas waa kan concealerka u isticmaalayay. hadhow qaladaadka aan ku falaaday aan ku nadiifin doono. angle brushkan waa kii aan u isticmaalayay pomadeka iyo concealerkaas oo ah 24 hours MAC Studio Fix concealer. nooc kastoo ku yaala concealerka waa okay, dhib male. aniga wixii aan haysto ama aan jecelahay inaan isticmaalo ayaan idin soo gudbinayaa. kale walaalaha dabcan kulley qof kasta qaab buu u samaystaa suunyihiisa makeupkiisa. anigu sida ii shaqaysay iyo sida aan jeclahay iyo sida aan ka helo ayaan idin soo gudbinayaa saad uga faa'iidaan idinkuna. idinkala ma baqaylayo. idinkana fadlan hala baqaylina inaad asxaabtiina saan hore idinku sheegayba iyo familigiina aad la sheer garaysaan. fariimaha ii dhaafa commentiga igu soo qora. wixii aad xiiseynaysaan, waxaad ka heshaan, waxaad jeceshihiin. anigu diyaar baan idin laahay. saan idin sheegayba gabar waxaan ahay qurxintan baratay, timaha, makeupka, cidiyaha, wax kastoo qurux ku saabsan. 20 sano la soo dhaafay ayaan bartay. alxamdulillah intaa ku shaqaysanayay. ilaahay ma haddaasi u sugnaatay. idinkuna kulley ajar baad ka helaysaan. jazaaka allahu khayran. aad baad ugu mahadsantihiin saad ii dhiirigelinaysaan. suunyaha korkor ayaan ugu shaleeyay brushkii yaraa ee mascara wandka ahaa. korkor waa inaad u shalaysid intaadan ku bilaabin marinta. markaad marinaysidna gacmaha waa inaad gacantaada aad mayd ka dhigtid ee baqti aad ka dhigtid oo wax xoog ah aadan u isticmaalin. tartiibna aad u marisid. tartiib waqtigaaga iska qaado, ha degdegin. weliba haddii aad weligaa hore u samayn oo ay sheekadani kugu cusub tahay, tartiib tartiib aad gaaraysaa. si qurux badan waad u samaysan doontaa insha allah. haddana hoos ayaan u shaleeyay. markaas waxaad arkaysaa suunyahaaga sidii ilaahay uu sameeyey natural linekaagii baa kuu soo baxaya markaad timaha ama kor isaga fidhid ama hoos u shalaysid. wakaas tartiib saaxiibayaal.
تكلي عن ربينا هران يعني عدكا وأن وضوغي لكن وحان ربعتين لدون شاقو أنا وسان هوري دون شاقو ميريام براون يعني استعماليها ديارتو فضلا waxaa idinka codsanayaa gabdhaha Soomaaliyeed khayr Ilaahay idin siiyo midab madow inaydun haweysanin midabka madow iska ilaawiya khayr ani kulay dooqayga ma ahan brown family-ga ayaan jeclahay inaan la joogo light brown medium brown dark brown kulay saas ayaan jeclahay marka waydun kaasataba qasab maaha yani waxa aan idin tusayo productiga aan idin tusay inaad yani isticmaashaan idinkuna wax daruuri ah maaha wax badan baa suuqa yaala sad la socotaanba powder ayaa yaala oo heleysaan xitaa eyeshadow-ga waad isticmaali kartaa qalinkii waad xitaa isticmaali kartaa qalin baa yaala iyo maaragtay pomade-kan يعني واديقا iyo idinka iyo dooqiina iyo maaragtay jeebkiina aniga productyada always aan jecelahay inaan isticmaalo oo way waxa ii yaala maaragtay hadda aan idin tusay waxaan cabaarahan marinayayba waa concealer-kii aniga idin dhahay waxaad ku falaadid dib baad ka qurxinaysaa ood ka nadiifinaysaa qasab maaha inaad korna nadiifisid anigu laakiin qaabkaas ayaan u jeclahay in kor iyo hoos ay labaduba nadiif ay ahaadaan marka adiga iyo idinka iyo dooqiina
طبعا qaabkaas waa qaabkaan u rabay waan ku qanacsanahay brushkaasina waa brush aan ku tirtirayo ama masaxayo concealerkii aan mariyay waa inay isku ekaadaan jirkaaga yani aad si fiican aad ugu baabi'isid si aan loo arkin inay wax marsan yihiin oo natural ah waa inaad si fiican aad maaragtay aad ugu baabi'isid waqtigaaga iska qaado adigoo degdegin tartiib tartiib yaa asxaabta waxaa la oran jiray xaraago xanuun ma leh miyay ahayd mise qurxintu xanuun ma leh kolay dumar baynu waxaa u nahoyn isla garanaynaa way isku dhammaatay halkaa xabo waan dhameeyey ma ka hesheen walaalaha dhinac kalaan soo samayn doonaa hawl baa isugaysa isku soo noqod wanaagsan suuyahana khafiif baad ka dhigan kartaa meel dhexaad baad ka dhigan kartaa sidii adigu aad jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa